بسم الله الرحمن الرحيم جريتان كأنه وحكو حراني هاي ديجان كأنه كنا لنا هاي ديجان كواحد كنا كسب بعد واحد نعون لهاي انتظرني الراشين كأني ديجان كواحد كنا الدنيا ده إنه دقنا أو نرشة إنه كحرانتها هذا إنه صاملنا هالشدال نمليهم ذهب نمليهم وحنا كقيمة بدن ذهب يشجع حولها إنه دقنا جيل يلا يا أرجع أي إنه كنا لنا قفل بصامالية واجي بريا وحوبها ون حولاد وحوبها هلب وحوبها سبق وحوبها عانه waxaynu dhoofino adduunka u iibgeynaa waa haraga iyo waxa weeyaan xoolaha nool waxaasina ku soo bedelanaa daawo shidaal cunto qalab dhismood horumar wax walba jiritaankeena iyadu ku xiran xoolihii meesha ay ku noolaayeen deegaanka haday saan noqoto maqaramada midoobay aynu ka sugaynaa inay boholaha ina ka ilaaliso oo biyaha inoo xidho oo dhulka inoo wanaajiso oo deegaanka inoo ilaaliso midowga Afrika ka sugaynaa si hay-adaynu ka sugaynaa adduunka ma jiro dad waxa weeyaan noloshooda iyo jiritaankooda iyo qiimahooda iyo dawladnimadoodu uu hay-ada iyo dawladda ku xiran yahay dadku iyaga tashada dal dadkiisa dhisa dal dadkiisa wanaajiya dal dadkiisa dhowra dal dadkiisa qurxiya deegaanka waa inaynu badbaadinaa si aynu u badbaadno deegaanka waa inaynu u daba qabanaa oo aynu wax ka qabanaa si aynu jiritaanka iyo nolosheena waxa weey ay sii jidho deegaankeena saas u dayacan yahay wuxuu u qaybsamaa qayb hololood bay noqotay oo biyaha gooyay oo dhulkii daaqii iyo cawskii waa aragtaan dhulku sidaas u yaala oo u soo go'aya qayb waxa weeyaan shayaadiin baa ku kacday oo dhirtii jaraysa oo waxa weey qaar xaaba ka dhigaysa iyadoo qoyan qaar waxa weey dhuxul ka shidaysa saas u baaba'aya qaarna waxa weey roob la'aan baa ku dhacday markii dhirtii iyo wixii laga dhameeyay waxay duurjoogteeni iyo ugaarteeni iyo xoolaheeni iyo quruxdeeni dhamaantood sidaas ku dhamaanayaan waa dabar go'ayna marka Soomaaliya hadaynan isdaba qaban waa inaynu isdaba qabanaa waa inaynu nolosheena dib u jeensanaa waa inaynu dalkeena dib u fiirinaa waa inaynu ogaanaa nolosheena inay ku xiran tahay deegaankana waa inaynu badbaadinaa fariinta aan dirayna waa qof walba deegaanka ka badbaadi si aad u badbaadid qof walba deegaanka noole si aad u noolaastid hadduu wax ma yaqaanku dhirta jaraya waa inaynu dhirta beernaa dhulkeena waa inaynu wax ka qabanaa xarunta goobahan bohololoodka oo sidaa noqonaya inagay ina sugayaan inaan badbaadino haddii kale waa ay soconaysaa ilaa dooxadoo dhan ay bohololood noqoto kadibna xoolaha ayna ka dhamaanaya kadib inaguna waa dabar go'aynaa marka deegaanka aynu badbaadino deegaanka aynu ilaalino deegaankeena waxa xaalufka ka dhigay oo dhirta ka jaray waa wax ma yaqaan waa inaynu beernaa sidoo abwaankii Soomaaliyeed hore u yiri nin walba 5 geed beer qof walba inaga ina kamida sidoo geed u beeri lahaa sababtoo geed beera waa nolol beere geed gooyana waa nolol gooyi deegaankeena waa inaynu daba qabanaa oo aynu ka damqanaa dhibaatada sida deegaankeena ugu socota waxa weeye aynu ogaano waa nolosheena oo burburaysa markuu dhulku go'aba nolosheena baa go'aysa nolosheena baa ciriiri galaysa xoolaheena iyo dunyadeena baa ciriiri galaya deegaankeena aynu daba qabanno deegaankeena aynu badbaadino si aynu u ilaalino inagoo nafteena iyo maalkeena iyo xooggeena iyo xoolaheena iyo caqligeena ku xisaabtamayna aan gacan shisheeye ku xisaabtamayna ama hasantii